dadka qaatiis ka celin waa sameeyaan ku dhaa waa iska reebay markay arkeen amba anigu dhimanayaan ba iyagu dhimanayaan waxay dhaheen war talow hana loo garnoqo waa nabadgelinaa way nabadgeliyeen nabad baan wadada ku mari jiray nabad wallah marka Soomaaliya ka imiday nabad baan wadada ku mari jiray group baan hayst maamada inta baxday dhahday 10 nin buu la dhashay waa in hebel inta u tagtay galab way ku tiri waa in hebel madgi lawdeen 10 nin buu la dhashay isagu baad aragtee inoo kala safa naagihii meeye haddaanan inoo xidha meeye nimankii wadadaas laga maray Soomaalidu taasi taqaana sharaf kale ma laha Soomaalidu maalintii ku arkaan la isku xidhanayo oo lagu garab taagan yahay oo lagu difaacayo waa laga leexanay waa la iga leexday anigoo naagnaagtaydiyaan Soomaaliya iska dhex mari jiray oo ninna ay eeg jirin qofna waxba ay diran jirin markaan Soomaaliya ka imi nabad baan ku noolaa nabad baan ku joogay habeenka rabo waa iska tuuran jiray soo inta ay eeg jirta mala soo qabiilkaaga isku adkay adaa Soomaaliya joogtid hadaa wiil niman xoog waaweyn la dhalato laga dambeeyo dhinacooda taagnow way ku badbaadinaa safety bay ku yihiin waa fahamsanahay dadka qabiilka taageeray waa fahamsanahay welfare ka haystid Soomaaliya waa qabiil Norway dawladda welfare kan waa dawladda Norway baa taajira markay dhibaato ku haysato dawladda lacagta ku siinaysa marka dhakhtar u baahatid dawladda lacagta ku siinaysa markay cid ku soo weerarto booliiska ku difaacaya oo maxkamadaha ku difaacaya Soomaaliya waxa haysataa qabiil bas nothing else so qabiilku waa muhiim somehow laakiin aniga muhiim ma aha that's why we are different I don't support qabiilkaygu way soo tuureena وما ترسني so I don't care قبيل I don't care markay dadku yiraahdaan qolada saatay qolada samaacadaha waa iska saaraa sida dadka gagawbay dhagaha bahalada loo galiyo samaacadaha waa iska saaraa so I don't need anymore qabiil uma baahni qabiil dawladda Norway bay difaacaysaa booliiska difaacaya telefoonkayga yar bay difaacaya number gaaran haystaan did albaabkii soo garaacayaan baa ku dhaa 5 daqiiqo kadib what's wrong maxaa ka socda mid baa intan taagano igu kacsan waxba ka sida maxaa ka rabtaa baa leeyahay haduu buuqbuuqo na raac baa leeyahay haye adoo inta kama tagi sidee so wax walba waa system so faham system kasaa u badbaadid faham maskaxdaada isticmaal drugs ha isticmaalin nolosha ka dhicin qof xun ha la saaxiibin maxaa dhahan taladaysiiyeen maxaa dhahan qaar baa talaysiyo waxay ugu dhahan qofka la saaxiibisid bay dhahan ilmaha ka saaxiib ma wala dhigi lahayd qof aad jeceshay saaxiib ma wala dhigi lahayd marka qof aan ilmaha ka saaxiib wala dhigi lahayn amba walaalkaa jeceshay saaxiib wala dhigi lahayn way saaxiib adigu ula tahay don't do that please ha isku sameyn qofka dhageyso isaga isku ka sheegayo qofku yahay markuu isku ka sheego ka carar taa weeyaan ta ku badbaadaysid soo asxaabe waa u soo jabay nolosha waa u soo jabaan ku dhaa bahaladan waa u soo jabay leebay stifta waa u soo helay bahalada waa u soo jabay inaan jacaylkayga firiyo haada waa u soo jabay adduunku wax bilaash ku yimaada ma jiraan xor ma rabtaa inaad noqotid survivor baa lagaaga baahan so aniga waxba hayga sugin anu kuma caawin karo mushahar baan qaataa mushaharkayga dharkayga iyo makeupkayga iyo fasaxayga iyo cuntadayda iyo inteeda yare kalaba kama badnaba iyo waxyaabaha leerkayga iyo TV-gayga iyo internetkayga ayaan ku daboolaa so dawladdu ma shaqeeyo dawladda Norway Soomaalida kama hesho rin hadaa doonaysid dib badan baa jirto meeshan dadku socialka wada qaataan ayday wada qaataan popular kama nihin so hadaa qof LGBT hadaa wadanka joogto sharci lagu siiyo waa laga yaabaa waa possible laakiin banaanka inta yimaadaan kaama soo qaadanayaan kuma keenayaan waxay dhahan hadaba in nagu filan waan haysanaabay dhahan Sweden bay balaayo ka taagan tahay Sweden baa imka la isku rifaya way baqanayaan kuwana waxay leeyihiin haddaynan control haysan oo ajaanibta iska controlin inagana waa leena qabsanaya dagaal baa inta ka bilaabmayo so way cabsanayaan aad bay cabsanayaan waqtigan aan ku jirno runtu waa sida soo walaalo waxaan ku rajaynayaa halkaaga Ilaahay kugu safe gareeyo soo hadaa rabtin aad soo tahriibtid dhibteeda leedahay daraasadeeda raadi lacag u hel cid ku caawiso u hel program u hel ha iska soo dhoofin naftaada khatar gelinaysa
haddaa Yurub joogtidna walaalayaalo taladan ku siinaya waxay tahay LGBT-nimadu waa halkan waa qalbiga nothing else dad inta dadka kala duwan bilaadan kale just LGBT-nimadu waa qalbiga so haddaad shaqo raadsanaysid haddaanu drugs isticmaalaynin haddaa qof fiican noqonaysid haddaa qof dadka caawiya noqonaysid haddaa qof dadka u naxariista noqonaysid haddaa qof edaab la noqonaysid haddaa qof qurux badan noqonaysid waxaas dhan gacmahaaga ku jiraan LGBT-nimo maaha inuu qofku nolosha ka dhaco LGBT-nimo ma anu waxaan arkay style baan arkay marka LGBT tahay wax wala xunba samee dabaal kasta gal meel kasta gal ha shaqo tegin habeenkaas xanin wax kasta caab wax kasta isku mid wax kasta samee oo marka laga guuleysay sida marka kuwii ka dambeeyay u badbaadinaysa sida picture fiican kuwa ka dambeeyay marka ugu noqonay Soomaalida ku nacabna oran doonaan wallahi waa wadada kaysa marayso ma aragtid adigana taas baa ku taala so wadada ma rabta may noloshii buu ka dhacay uu rafaasay wadada ma rabta maha wadada baa ku taala gal masaajidku afar caruur dhal anaga kugu biilina naagtane hadaad qoftu maratay choice ba malihida so dumar choice in leeyahay Soomaalidu ma haystaan laakiin waxaan ka hadlayaa haddii nin khaniisa tahay so chance choice kaas baa lagu siinayaa laakiin haddii gabadh LGBT tahay waa lagu geynayaa waa naagtani ku fariisiyam ku dhaay so chance adu ma lihido so wallahi na bid waa fahmsan waxaan ka hadlayaa wala been isku sheegayna sababaha dumarka si khaas ugu taageero waa sababahaas way badan dumarka choice lama siiyo bulshadeena waa ogtiin sida looga nool yahay ma garanayo hadda familada qaar kood ka timidayda oo bulshadeena waa hierarchy bay yihiin bulshadeena Daawid waa dadku ma siino familada qaar kood familada dhan ma familada qaar kood waa liberal familada qaar kood choice ka habluyaga iskale laakiin waxa ka hadlayaa majority-ga naan fahmi waayeen anu majority-ga aan ka hadlayaa in lagu soo dhago ma doonayo majority-ga bulshadeena dumarku choice ma laha waa arkisay inay yaro 13 jir in oday laga iibiyay oo markii dambe aabaheed rabay inuu lacag ku qaato intii yar markii waalatay that's the kind of normal bulshadeena hadda qof faqiira tahay that's the normal level utaaween ta qaadaya arinta dumar badan baa xuquuqdooda rabay inay u doodaan oo ma raba inaan ku sii dheeraada sii dhex galo arintaas aan ka hadlayaa ku koobnaanaya oo dib ugu laabanaya أنا شكيت activism أنا معناه waxa weeyaan inaan baraarujin ku sameeyo bulshadeena iyo cidii kale igu garab taaganba haduu familkeyga ka dhasho qof dambe oo sidaydoo kala inayna ku dhicintii aniga igu dhacday taas weeyaan muhiimadeeda ugu weyn amba qof kale Soomaaliya oo qof kasta Soomaaliya caawin kara ha noqdo hadii qof sidaydoo kale oo Soomaaliya dhasho konta kasanood boqol kasanood ee soo socda marka dhinta kadib la aaso waxa rabaa in la gubo markii la gubo hawada ka baxo soo waxa rabaa kuwa dhasho inay aanu tala soo maro kala soo marin inay dhibti anigu soo dhacdo kale ku dhicin inay just somehow ogaadaan ma waalni waxay ma dhinno kaysaba uu jiri jiray uu iga soo horeeyay uu jiri jiray waqtigaas halkaas buu deganaan jiray sidaas buu eekaa sidan buu iska dhigi jiray sidan buu labisan jiray dadka noocaas uu ka heli jiray haddii qof soo dhasho even inuu ogaado ina aanu jiri jiray pointigeyga ugu weyn waa ka activismnimadeedu waa taa haddana waxaan dareemayaa inay Soomaali badan awareness ku samaysay lifestyle-ka noolahay aniga ma dadka loo badan bay iga soo social media oo arrimahan ka hadlay oo arrimahan ku jiray wax kasto ay dhaheen ma taageerayo laakiin in ay awareness ku sameeyeen inay dad LGBT jiraan waa taageeraya waa ku faraxsanahay waa ku sabooraya korka ay saaran yihiin so nobody's perfect anu malihi ana perfectia idinkuna perfectiba ahaydeen ma dhahayo laakiin dad badan oo xuquuqda LGBT-ga u dooda oo Soomaali way jiraan waa la ku faraxsanay waana ku sabooraya
boqolkiiba boqol baan ku sabaray waana mahadsantiin waayo aniguba idinka laftigeedu dhiirigelinta anigay gashay qayb ka mid aad ahaydeen khaas ahaan waxa aniga bedelay oo igu khasbay inaan social media soo galo markaan arkay ushaydan ku dhacaysa intay leegtahay wallahi inaanan been sheegin markaan arkay ushaydan ku dhacaysa intay leegtahay waxaan dhahay waa cadaalad darro inay dad dhalinyaro ah oo da'da jira oo LGBT usha intaa leeg ku dhacdo oo aniga iyo qaar kale badan anu saaxiibo Soomaaliya oo psychology ah oo dhakhtar ah oo wax walba LGBT jira oo juuq dhihin oo taaliftigeedu waa cadaalad darro markuu ilmo yar oo LGBT oo da'yar oo social media soo galo ee la karbaasho ee kuweeni waaweynaa LGBT-ga ee wax dhihi karayay ee codka lahaa ee fikirka lahaa ee fikradda lahaa aan hoosta ka daawanaan baqano aan ka baqano bulshada Soomaalida wallahi inaan cadaalad ahayn fake qof xun baa tahay marka taa ku sameynaysid adoo wax yaqaano oo wax dhigtay oo wax fahmi kara oo wax ka doodi kara oo og sida situation ku yahay ee inta daawatid mar raba inaan magacaabo dad ku jira social media dhalinyaro sida loo karbaashiyo marka maalin walba daawatid ogtay adigna qalbigaaga waxa ku jira wallahi inaan cadaalad ahayn that's not okay sababta u soo galay TikTok oo social media so hadday Soomaali fara badan iyo faro garayso iyo haddayna ay falo gareen iyo hadday iga wada tagaan already anu just aimkayga waa gaaray xaqiiqatan wax badan waa gaaray